assalaamu calaykum. ma soo dhawaysan lahayd wiilkaaga wadnaha looga saaray? sidees ayaad ku dareemi lahayd haddii aad maqli lahayd wadnaha ayaa looga saaray wiilkaagii wiil kale, sidaas ayuuna wiilkaagii ku dhintay oo uu adduunka uga tegey? maanta waxaan kula wadaagaya qiso aad u dareen badan oon hubo inaad la ilmayn doonto qaabka ay u dhacday iyo dhammaadka qisada oo cid kasta dareen khaas oo samaysay. Trishan iyo Jacob waxay ahaayeen laba wiil oo saaxiib ah, waxaana ka wada tirsanaayeen akademiyada ciidamada dalka Mareykanka. yaraantoodii waxay ahaayeen saaxiibo isku dhow, kuwaas oo aan marnaba dhexdooda la marin. waxay qaybsadeen dhib iyo dheefba, waxaana ahaayeen saaxiibo la tilmaansado, kuwaas oo ay cid kasta ku dayato wanaagooda iyo sida ay u yihiin saaxiibo isku dhow. yaraantoodii ayay ciidamada militariga dalka Mareykanka ku biireen akademiyadii lagu tababari jiray, kadibna waqtiyo badan oo ay ku wada jireen ciidamada iyo gulufyo badan ay ka wada qayb qaateen. waxaa dhacay arrinka aan ka sheekayn doono ee keenay dadku in ay la ilmeeyaan, murugadana ku dambeeyey. waqtiyada ka mid ah ayaa ciidamada ay ka tirsanayeen loo daadgureeyey mashaqo dagaal oo ka dhacday meel aan aad uga fogeyn halka ay ku sugnaayeen. maadaama ay ahaayeen rag soo majeestayaalana, waxay ku jireen furinta hore ee dagaalka oo may ahayn qaar gadaal kaga jira dagaalka. halkaas waxa ka dhacay wax aad looga naxay, maadaama oo labadoodaba dhaawacyo halis ay ka soo gaadheen, taasoo sababtay kama dambaystii inuu dhintay ninka la yidhaahdo Trishan. intii lagu guda jiray dagaalkii ay markaa ka qayb qaadanayeen ayaa waxaa lala beegsaday xabado, waxaana si xun labadoodaba dhaawac uga soo gaadhay goobtaas. qolyihii gurmadka ayaa la soo orday, waxayna keeneen dhakhaatiirtii ku fiicnaayeen markaasi dalka Mareykanka. daawadooda ayaa laga howlgalay, balse waxay ahayd xaaladdu mid sii adkaanaysa saacadba saacadda ka dambaysa. Jacob waxaa xabad uga dhacday xabadka iyo laabta, sidoo kale taasoo wadnihiisa ku yeelatay saameyn aad u weyn, jirtayna qaar ka mid ah xididada wadnaha dhiigga u qaada, taasoo ku sugnaa xaalad aad u daran oon la qiyaasi karin markaas. bilowgii ilaa dhammaadka dhakhtarka laga keenayay waxaa ku jiray koomo, ilaa haddana waxa uu ku jiraa koomada, halka Trishan dhinac dhan uu finish noqday oo ay gogeysay rasaasta iyo xabadihii lagu soo furay. Trishan ma uu lahayn rajo intaa ka sii badan, waxaana u muuqday mid dhimanaya maadaama ay xabaddu jartay meelaha aad u daran, jidhkiisoo dhan oo aad u googo'naa oo dhinac dhan finish noqday. laakiinse waxau qabay miyirkiisa iyo maskaxdiisa, waxaanu dhakhaatiirtii weydiiyey meeyay saaxiibkay Jacob iga warrama xaaladiisa. waxaana u sheegeen inay xabaddu ka dhacday wadnihiisuna beddel yahay oo aanu sii noolaan karin intaa wax ka badan. Trishan waxa uu sheegay dhakhaatiirtii, aniga uma muuqdo rajo fiicanna ma lihi, inaan noolaan doonana ma aaminsani, balse haddiiba aan dhinto waxaad iga ballan qaadnaa wadnahayga inaad u gelin doontaan saaxiibkay si uu noolaado u sii wato noloshiisa. maalintii ku xigtay waxaa dhintay wiilkii la odhan jiray Trishan, waxaana dhakhaatiirtu ku talagaleen si ay u filiyaan qorshihii uu sheegay iyo ballanqaadkii ay ka qaadeen ee ahaa in wadnaha laga saaro oo loo geliyo saaxiibkii. balse ugu horreyn waxay doonayeen dhakhaatiirtu inay helaan permission ah inay wadnaha ka soo saaraan una geliyaan kan kale. waxaana waceen hooyadii Kelly, hooyadii dhashay ninka la yidhaahdo Trishan, waxaana u sheegeen wiilkeedii inuu dhintay, saaxiibkiina uu koomo ku jiro oo aad halis ugu jiro, wadnaha inuu geliyana oo looga saaro wadnahana uu mar hore ballanqaad u fuliyey ninka la yidhaahdo Trishan ka hor intii aanu dhimanin. Kelly, hooyadii dhashay Trishan, murugo fara badan oo ay dareentay niyad badan. ugu dambeyn waxay aqbashay arrinkaas, waxaana dhakhaatiirtii ku dhiirisay inay wadnaha uga beddelaan maadaama wiilkeedii dhintay oo aanu soo noqonaynin, saaxiibkiina inaanu raacin oo isna aanu dhimanin. dhakhaatiirtii waxay bilaabeen operation-koodii iyo qaliinkii ay gelayeen, waxaanay wadnaha uga saareen Trishan iyagoo u geliyeen ninka la odhan jiray Jacob. ugu dambeyn muddo badan iyo waqtiyo badan oo dhakhtarka ku sii jiray, waxaa ka soo kacay koomadii iyo xanuunkii ninkii la odhan jiray Jacob. dowladdu waxay ugu tala gashay marka uu ka soo ladnaado xanuunkan, isaga iyo 10 nin oo kale oo saraakiil ah in loo diro waddanka Ingiriiska si loogu soo tababaro ay halkaa ugu soo qaataan tababar joogto ah oo saraakiilnimo. Jacob wuxuu ahaa mid mar walba xidhiidhiyo oo waca Trishan hooyadii Kelly, isagoo u sheegaya in isaga sababtiisa u nool yihiin, isaga dartiina uu sii jooga adduunka maadaama uu isticmaalaya wadnihiisa oo waxa uu sitaa uu yahay wadnihiisii. Kelly way jeclaatay, waxayna u jeclaatay sidii wiilkeedii oo kale, maadaama waddan kale loo dirayna nasiib isuma helin ay ku kulmaan waqtigaas. Kelly muddo fara badan kadib waxay dareentay cidlo, waxay dareentay welwel, waxayna dareentay noloshan inaanay ku sii soconaynin maadaama aanay hore nin u lahayn oo ninkeedii beri hore dhintay, sidoo kale wiilkii adduunka ka ilaashanaysay ay dhashay ee Trishan uu dhintay. waxay dareentay welwel iyo cidlo fara badan iyadoo guud ka muuqday wejigeeda wareenka iyo fikirka faraha badan.
kadib waxay isbarteen oo ay xidhiidh yeesheen nin la odhan jiray Henry. ninkaas ayaa waxay wada yeesheen xidhiidh aad u qurux badan oo guulaystay. ugu dambeynna waxa uu ka dalbaday inay isguursadaan, balse waxa uu ballan qaaday maalinta xafladda arooskooda inuu u keeni doono qof aad uga farxin doono muuqaalkiisu oo ay la ilmeyn doonto lana dareemi doonto farxadda saa'idka ah ee ka muuqan doonta wejigeeda. balse waxaa dhacday arrin yaab leh. maalin maalmaha ka mida Kelly waxay heshay warqadaas oo aanay garanayn cid u soo dirtay. fariinta markii ay akhrisatay waxay u qorayd sidan: hooyo, waa aniga, waxaan ku suganahay hawada, waxaana joogta ruuxdayda hawada. waxaan rabaa maalinka farxadda inaan kala soo qayb galo xafladda arooskana aan imaado si aan indhahaaga iyo wejigaaga uga arko farxadda aad dareemaysid. balse hal mid ii samee, xasuusnow inaan iman doono maalinkaan aan kaala soo qayb geli doono xafladda. waxaan u baahnaa inaad iisii bannayso kursigaan ku fadhiisan lahaa iyo goobtii aan kaga sugnaan lahaa xafladda. arrinkaas Kelly waa ay fudaysatay, waxaana ka soo qaaday keliya wax iska hawaa oo beena ah, maadaama iyadu ogeyd in wiilkeedii dhintay oo bar hore adduunyada ka tegey. ma ay aaminin arrinkaas, waxaana u aragtay inuu yahay arrin dheeldheel ah oo qof ka mid ah asxaabteeda iyo dadka ay taqaanaa ku dheeldheelayaan. Kelly waxa uu sheegay Henry oo ah ninkii guursaday maalinka xafladeeda inay arrintan u dhici doonto, maantana ay gaadhay xilligii iyo waqtigii xafladda la joogo. saacad kadibna uu keeni doono qof aad uga farxin doona, wejigeedana ka muujin doono farxadda aan cidina qiyaasi doonin. waxa uu diyaargareeyey kaamiramanada iyo journalismka, iyagoo gebi ahaantoonba ku soo xadiray goobtii aroosku ka dhacayay. in yar kadib waxa uu gacanta soo qabtay nin, isagoo wejiga kaga soo xidhay maro. markii uu horteeda marinayay ayaa uu ka furay maradii wejiga uga xidhnayd, waxaana uu hintii ceshan weyday iyo ilmada ay isku dartay gabadha la yidhaahda Kelly. waxay aqoonsatay wiilkan inuu yahay wiilkii wadnaha looga saaray wiilkeeda. waxay dareentay wadnaha ku jira inuu yahay wadnihii wiilkeeda ee dhintay muddo ka hor. maadaama ay aad u jeclaydna waxay dareemaysay jacaylkii la mida inay u qabto wiilkan. isaga laftigiisu wuxuu ahaa mid mar walba soo xidhiidhiyo oo la soo hadla, wuxuuna ahaa qof ay xasuustiisa isku weyn yihiin oo ay aad isugu dheer yihiin. waxay isku dartay ereyaan hagaagsanayn, waxay isku dartay hadalla ka dhaaf ah iyadoo leh waad nooshahay, waad ii soo noqotay, xaaladaada hadda way fiican tahay. waxaa intaaba u dheeraa waxay wadnaha ka saaraysay waxyaalaha garaaca wadnaha lagu cabiro, iyadoo la wadnaha ku si fiican u shaqaynayaa. aad ayaad u wanaagsanaatay, alxamdulilah haddii aad ii fiicnaatay. Jacob arrintaa waa uu ka murugooday, waxaanu dareemay farxad saa'ida. dadka goobta ku sugnaa oo dhani murugada iyo oohinta iyo farxadda ayaa isdhex qaaday, waxaanay noqdeen dad qeyra ay wada gaadhay, dhammaantoodna la ilmeeyay arrinta meesha ka dhacday. waxaana goobtaasi noqotay maalinta Jacob, Kelly iyo sidoo kale Henry goob lagu xasuustay ninkii la odhan jiray Trishan iyo wanaaggii uu sameeyey saaxiibkii. maalintaasina waxay ahayd maalin ka weyn dhankooda oo ay aad u qiimeynayeen. haddaba daawade, ma u bixin lahayd saaxiibka wadnahaaga? sideese ayaad u aragtaa mucda iyo miisaanka ay leedahay qisadu? maxadse ku dareentay? fadlan haylaaw inaad laygaraysa muuqaalka, kuna soo biir channelkeena Baaldahab TV oo taaba buttonka subscribe si aad ula socoto muuqaalada dambe aadka u xiisaha badan oo aan hubayn aad ku xiiso gelin doonaan.